Assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin kusoo dhawaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka. Aynu ku bilowno wararkeenana waxaa ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaheeda Mustafa Cagjar ayaa kulan la qaatay wasiiradiisa. Kulankaasi oo ku saabsanaa kala dirista ciidamada new booliska iyo hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed, halkaasi oo ay u muuqato in lagu kala diri doono ciidamada new police dib habeenna lagu sameyn doono. Shacabka ku dhaqan DDSI ayaa muddadii ugu dambeysay naruuro dareemayay ciidamadaasi oo ay ku nasteen, halkii ciidamadaasi awoodooda ay ku soo bandhigeen markii ugu horeysayna ay kula dagaalameen ururkii ku weeraray ee Al-Shabaab. Ciidamada Itoobiya ayaa la aaminsan yahay ama dowladda Itoobiya inay cabsi ka qabto ciidamadaasi waxayna u kala diraysaa sidaa awgeed. Sidaynu ognahay ciidamadaasi oo aan haysanin hubka noocyadiisa kala duwan sida hubabka aad u waaweyn, ayagoo iska haysta hub aad u yar una kooban, aan loo ogoleyn in loo fasaxo hubka kiisa awoodda miran. Saraakiisha new police uu la kulmay Mustafa Cagjar uu shirna kula qaatay ayaa waxay kala dooran doonaan laba midkood. Markii la yiraahdo soo wareejiya hubka inay diidaan oo dagaal ay ka doortaan, iyo in hubka ay wareejiyaan oo ay yeelaan madaxweynaha Mustafa Cagjar hadalkiisa iyo hadalkii ka soo yeeray Abiy Ahmed. Haddaynu eegno dhinaca kale, dagaalada ka soconaya Laascaano ama gobolka Sool ayaa waxaa la soo xaqiijinayaa aagga dagaal ee Gooja Cadde loo yaqaano oo ay ku sugan yihiin ciidamada SNM-ta ayaa waxaa la sheegayaa inuu dhexdooda ka dhex qarxay dagaalkaasoo u dhexeeya laba beel oo ka tirsan SNM-ta ciidamadeeda. Waa habar awal iyo habar jeclo oo la sheegaya inay isku dagaaleen qaabka istiraatiijiyadda loo dhigay ee dagaalkaasi oo soconaya muddadii ugu dambeysay ayaa waxaa la soo sheegayaa in weli ay socoto labada dhinac inay isku hub urursanayaan. Ciidamada xaq u dirirka ACC ayaa waxaa la sheegayaa inuu gaarayo saanad military iyo ciidamo uga kala yimaanayo walaalahood Hiil Harti oo ugu dambeysay Siwakhroon oo gaaray Laascaano beesha loo yaqaano. Ciidamada xaq u dirirka ACC ayaa waxay jireen isu socodka gaadiidka ka imaanaya Somaliland iyo Koonfurta, ayagoo xaqiijiyay inuusan dhici doonin wax ganacsi ah ama wax gaadiid ah oo dhex mari doono Somaliland. Haddaynu eegno wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada Mareykanka oo dhoolatus la sameyn doono ciidamada Taiwan. Dhoolatuskaasoo noqon doona dhoolatuskii abid ugu weynaa oo ay la sameeyaan ciidamada Mareykanka ah dowladda Taiwan. Fadlan walaal, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, ha naga hilmaamin subscribe-ta, like-ta, share-ka, wixii comments-ina fariinta noogu reeb. Mahadsanid walaal.